والله مغلا ما شاء الله سيف عم بالغو مغلا دكتور أحمد دما والسلام يا والله سيجود بقى السلام يا قرها واحد سلام يا ليدرس كان سلام يا قفك يا حبيبي تهيئ وناكسن قفك مالون تهيئ مالون وناكسن عا waxaan rabnaa inaan isla dulmarno waliba si kooban oo nuxur leh shirkaddan Leaf Good waxa ay tahay iyo sida looga faa'iido iyo maxaan ku yiraahdaa guud ahaan qaabka ay u shaqeyso haddii aan la idmo sidaa darteed waxaan xoog saari doonaa guud ahaan 5 qodob oo aan ku soo koobay barnaamijkan oo qofkii caawa 5 qodob halkan waxa weeyaan ku jira zoomkan oo 5 qodob caawa wax ka fahma inaan Leaf Good waxa ay tahay iyo sida looga shaqeeyo iyo qofkii waxa looga baahan yahay oo cid kale weydiin doona haddii aan la idmo oo asaguna cid uga sheekeeyo ma ahane qofkii caawa zoomkan ku jiro insha Allah aan qofna uga sheekeyn haddii aan la idmo sidaa daraadeed waxaan ku bilaabanaa Leaf Good waxa ay tahay haddii aan la idmo marka waxaan dul istaagi doonaa haddii aan la idmo 5 qodob oo kooban marka ugu horeysa waxaan isla arki doonaa Leaf Good waxa ay tahay qodobkeena labaad waxaan isla fiirin doonaa Leaf Good xagee ku taalaa qodobkeena saddexaad waxaan isla fiirin doonaa Leaf Good product noocee ay soo saartaa iyo waliba tusaalooyinkooda haddii aan la idmo qodobkeena afraad waxaan ku falanqayn doonaa intee qaab ayaa Leaf Good looga faa'iideysan karaa ama lacag looga samayn karayaa qodobkeena shanaad sidee ayaa darajooyinka loo gaaraa shirkaddan Leaf Good عشركنا عاوي حكم نان سنتا قضب وهدي الله إنه عن فلانقين دونا متكسرنا دول يستعد دونا هذا علينا هذا هو شركة Leaf Good محيط هاي هذا عن قيد حد هذا عن شركة عن كور مرنا شركة عن وشركة كل شقة سقاب كا أونلاين كا أما ندور ماركتينج وحلو يقانو سأقولنا ما أنت عالم كوحويان معاميشي وحيسوقوا رين نتورك أما إنترنت كأي سوق رين سادرات كمباني كانوا وكمباني حق إنترنت كشغية سواء صوص صار يا برودكتي هو سواء حوية وجقول لي هاي إنه كهر مريوع عفمات كبرشدة أما معاميش يسا هذا مركز يقف نقف حوية العقد بدنا إذا كبحين أما خرج بدنا إذا كبحين وقف كوا حوية عن برودكت كاس وكيب سندونه أي ما أدو تشبان أو مركز حوية وأود كريو شركة أنا واحد كنت على عرق أمريكان كا dalka ay uga jeedaanba gaar ahaan magaalada loo yaqaan Florida ayaa ku taala oo xafiiskeeda ugu weyn iyo xarunta ugu weyn hadda ay ku taala oo shirkaddan waxa laga leeyahay ariga Mareykanka ayaa laga leeyahay oo asal ahaan anaga naga soo gaartay qodobkeena saddexaad oo ahaa products ay soo saardo maxay yihiin iyo tusaalooyin waliba arki doono iyo products waliba faa'iidooyin badan oo ay leeyihiin haddii aan la idmo ayaa ku eegi doonaa qodobkeena saddexaad كبرنا برضه وصار صار واحد كم بدأ هذا هالك عوجة شيئان أو لو يقانو سوبر ريدس مركز برضه تجانو حيالها مركز وما أرتي فإذا أولي هاي واحد كو قرنت هذا في رسالة ماشى قرأ أي كو قرنت هاي واحد كم cardiovascular health إن معنا واحد وعذرته حق لحرري وإنه أكله وناكسي هاي قلب كله كحيو circulation أو حق محن كده هذا كل كديجو أكله وناكسي هاي أما أبليس كديجو أكله وناكسي هاي عرض يعني كدعة أما جودهم بما أرتي وناكسي هاي أبليس كديج مرينكا sidoo kale waxa weeyaan qodobkan wuxuu sheegayaa in ma artay xagga lamaanaha iyo ku wanaagsan yahay xagga gogasha lamaanaha isqaba sidoo kale halkan waxa weeyaan xagga maskaxda caafimaadka kale inuu wanaagsan yahay barodhigtan qofkii markaas gata oo isticmaala inuu intaas oo faa'iido ah uu ka heli doono haddii aan leedno marka barodhigtan marka ay soo saardo maxaa niri Leaf Good produce nutritional supplement products such as waxay soo saardaa shirkadda Leaf Good product bay soo saardaa kuwaas oo ah product nafaqo leh oo qofka ka caawinaya ama caafimaad ahaan ama cunto ahaan intaba u caawinaya ayay soo saaraysaa oo tusaalaha uu yahay kan hadda super rediskan hadda aan sharaxayno sidoo kale waxa kamid ah fitamiinka halka aan uga jeedaan fitamiinkana wuxuu ka kooban yahay 24 fitamiin oo la isku daray
iyo macdano ayuu ka kooban yahay sidaa daraadeed faa'iidada uu leeyahay waxa weeye inuu maxaan ku dhahaa difaaca jirka kor u qaado sidoo kale waxa weeyaan cudurrada wadnaha kale waa loo isticmaali karaa oo xagga ma aragtay wadnaha kale faa'iido weyn ayuu leeyahay qofka isticmaala sidoo kale wuxuu kor u qaadayaa xagga caafimaadka yacni qofka duuduubka yeeshay oo kale ama xagga da'da oo kale ay ka muuqato ama waxa dhici karta qof da'da uu gaarin oo kale uu ka muuqdo duuduubkaas marka haddii productkan uu isticmaalo oo kale wax weyn bay ka bedelaysaa caafimaadkiisa marka shirkaddan waxyaalaha u badan soo saardhay waa faytamiinada sababta waxa weeye 92% dadka hadda ku nool ama bulshada ku nool dalka Mareykanka oo kale waxyaalaha ay ka cabanayaan waxa ka mid ah vitamin deficiency disease la yiraahdo oo yacni faytamiinada cudurrada macnaha ay keenaan qofkii oo faytamiinka ku yar yahay haddii marka faytamiinka qayb ka mid ah ay kugu yar tahay waxa u baahan tahay wax faytamiinkaas kaa caawiyo sidaa daraadeed shirkaddan waxay bulshada u haysaa in arrinta ayada ay ka caawiso oo productive ku habboon ay u soo saarto isla markaasna qiimo jaban ay ugu soo saarto kan oo kale hadda u jeedaan waa kafee weeye organic coffee weeyaan oo faa'iidooyinka uu leeyahay waxa weeyaan waa arki doonaa waxa weeyaan support house mood qofkii maartay inuu xaaladiisa ka dhigo xaalad degan markuu kafeega isticmaalo kale qofkii inuu noqdo focus and mental clarity qof degan oo markaa wixii uu ka fakarayo ama mowduuc markaa uu ka fakarayo kale inuu si degan maartay uga fakaro oo jawiga uu dejiyo sidoo kale waxa loo isticmaali karaa xagga miisaan dhimista oo kale in baa loo isticmaali karaa kafeegan waana organic weeyaan organic macnaheedu waxa weeyaan aan lagu darin wax chemical weey tan oo kale waxa kamid ah 3E baa la yiraahdaa iyada waa energy endurance electrolytes saddexda marka 3E waxa loo soo gaabiyay iyadoo koobaad oo ah energy oo ah qofkii inuu wixii tabar ka helayo endurance oo ah markuu isticmaalo adkaysi inuu ka helayo tusaalahaan kale dadka sportiga ciyaaro kale ama orodka ordo oo kale ayaa isticmaala sidoo kale qofkii markuu dee fuuq baxo ama dhiig badan uu ka baxo kale waxa weeyaan waxa uu sameynaysaa inuu maartay fuuq cilmi bay u noqonaysaa marka immediate energy baa laga helayaa tabar degdeg ah ka helayaa qofka ka helayaa electrolytes for performance and recovery qofkii marka waxa weeyaan wixii ka baxay oo maartay ama dhiig ahaa oo kale ama ina maartay fuuq cilmi u sameeyso kale great tasting waxa uu dhadhankeedu uu wanaagsan yahay oo qofkii maartay waxa weeyaan isticmaalkeedu kuma dhibtoonayo oo dhadhan wanaagsan ay leedahay markuu isticmaalayo marka waa qaybo kamid tusaale kamid ah products ay soo saarto company-gan oo cajiibka uu ku yahay intaas oo faa'iido ayagoo leh haddana waxa ay wixii aad u jaban yihiin oo qiimahooda aad u jaban yahay runtii sidaa daraadeed company-gan waxyaalaha uu company-da kale kaga fiican waxa kamid ah products oo quality leh iyo isla markaas products oo maxay qiimaheedu u jaban yahay oo qofkii marka uu awoodi karayo marka waxa laabaynaa qodobkeena afraad oo ahaa intee qaab ayaa looga sameyn karayaa lacag company-gan leafku loo yaqaan intee qaab lacag looga sameyn karayaa qaabka koobaad marka haddaan dul istaagno waa weekly fast start commissions oo ah commission isbuucla ah yacni lacag isbuucii uu qofku ka helayo markii uu shaqaysto waxa la markaas qof kasta oo aad ku soo xidhay shirkadda leafgood kaas oo xubin noqda iskana bixiya lacagta $50 bixiya waxaad ka helaysaa $25 oo haddii waxa weeyaan shirkaddan marka adigu aad isdiiwaan gelisay haddii aad ku soo xirtid qofkaasna uu isdiiwaan geliyo qofkaas waxaad ka helaysaa $25 ayaad waxaad ka helaysaa isbuuc isdiiwaan geliyay maahan isbuuca ku xiga khamiistiisa waxaad ka helaysaa $25 marka kan waa isbuuclo weeyo commissionkan waa isbuucle commissionkan waxa weeye waa isbuuclo weeyaan marka commission paid out every next week commissionka marka waxa la bixiyaa isbuucla ayaa la bixiyaa oo isbuuca qofka uu diiwaan geliyay salahan hadaa maanta adiga qof diiwaan gelisay oo linkaaga asisay waxaad ka sugaysaa lacagtaas isbuuca dambe oo soo socda khamiistiisa hadaa leeyahay sidoo kale hadii qofkaas aa keentay uu sii shaqeeyo waxaad ku yeelanaysaa commission baad ku yeelanaysaa ilaa iyo levelka 10aad ayaad waxaad ku yeelan kartaa commission iyadoo ay ku xiran tahay hadba adigu markaas rankiga aad tahay ama darajada aad tahay sidaa daraadeed taybalka hoose ayaan maarta ku sharaxi doonaa darajooyinkan iyo sida loo kala helayo shirkaddan guud ahaan waxaa la gaaraa 5 darajo ayaa la gaaraa tan koowaad waxa weeye waa bronze talabaadna waa silver
saddexaadna waa gold tan afraadna waa platinum tan shanaad ugu dambeysana waa diamond waa isla arki doonaa insha Allah sida lagu gaaro marka halka waxa nagu qoran unrank macnaheedu waxa weeye waa qof aan darajo gaarin oo darajada kambariga waxa lagu gaaraa laba qof sidaa daraadeed adigu marka isdiiwaan gelisay haddii hal qof aa keentay oo linkaaga uu qaatay qofkaas boqolkiiba 50 ayaad ka helaysaa lacagta isku diiwaan geliyay marka qofku muxuu isku diiwaan geliyay $50 buu isku diiwaan geliyay 50 laba u qaybi 25 waa tan ku soo arkaynay waxaad ka helaysaa $25 waa markii wax darajo aadan haysan ee hal qof kaliya aa keentay weeyaan taas diiwaan gelisay markii qofku marka darajada koobaad uu gaaro oo bronzaha loo yaqaano qof kasta oo diiwaan geliyo wuxuu ka helayaa boqolkiiba 50 si la mid ah qofkii rankiga ahaa haddii marka qofka adigu aa keentay uu qof sii keeno labaad oo level 2 ku noqonaya waxaad ka helaysaa boqolkiiba 10 laba qof baa keentay bronze noqotay ala qof waxa ka heshay boqolkiiba 50 dadkii adigu aa keentay marka haddii dad ay keenaan boqolkiiba 10 baad ku yeelanaysaa waa marka aad tahay bronzaha sidoo kale marka darajada labaad aa gaartid oo silverka loo yaqaano qof kasta oo aa keentid boqolkiiba 50 baad ku leedahay direct kaaga xiran yaani waa qof aa keentay waxaan ka wadaa waa qof linkaaga toos uga talaalan boqolkiiba 50 baad ku leedahay oo $25 ah qofkaas qofku uu sii keeno boqolkiiba 10 baad ku yeelanaysaa kan boqolkiiba 10 aad ka qaadatay oo levelkaaga labaad ah qofka uu sii keeno waxaad ku yeelanaysaa oo level 3gaaga ah waxaad ku yeelanaysaa boqolkiiba 5 kan boqolkiiba 5 aad ka qaadatay oo level 3gaaga ah qofka uu keeno oo level 4 ku noqonaya waxaad ka qaadanaysaa boqolkiiba 5 waa level 4kaagi marka silverka tahay ilaa levelka afraad yaani ama ilaa qofka labaad waxaad ka qaadanaysaa qofka afraad ayaa waxaad ka qaadanaysaa commission baad ku yeelanaysaa oo marka tahay silverka ilaa level 4kaaga ayaa waxaad ka qaadanaysaa commission goal qofka markuu uu gaaro darajada goolka markuu gaaro qofka ka talaalan toos uga talaalan boqolkiiba 50 qofka ka talaalan qofku keeno boqolkiiba 10 qofkan boqolkiiba 10 ka qaatay qofka uu keeno boqolkiiba isku leeyahay 5 buu ku leeyahay sidoo kale qofkan uu boqolkiiba 5 ka qaatay oo level 3ga ah qofka uu keeno oo level 4 inoo noqonaya boqolkiiba 5 buu ku yeelanaya qofkan level 4 ka qofka inoo keeno oo level 5 keenana boqolkiiba 3 ayuu ku yeelanaya level 6 kan wuxuu ku yeelanayaa 2% sida daraaddeed goal marka aad tahay ilaa levelka 6aad ayaad waxaad ku yeelanaysaa commission waa marka aad tahay darajada gooldiga darajada ku xigta waa afraad waxa loo yaqaanaa platinum baa loo yaqaanaa qofka toos kaaga talaalan waa sidii oo kale oo waxa weeyaan guud ahaanba qofka uu toos kaaga talaalan yahay waxaad ka helaysaa maxay boqolkiiba 50 baad ka helaysaa marka qofka toos kaaga talaalan boqolkiiba 50 baad ku leedahay level 2gaaga boqolkiiba 10 baad ku leedahay level 3gaaga boqolkiiba 5 baad ku leedahay level 4kaaga boqolkiiba 5 baad ku leedahay level 3gaaga boqolkiiba 3 baad ku leedahay level waxaan ka wadaa level 5kaaga boqolkiiba 3 baad ku leedahay level 6kaaga waxaad ku leedahay boqolkiiba 2 level 7kaaga waxaad ku leedahay sidoo kale boqolkiiba 2 ayaad ku leedahay qofku markuu diamond yahay diamondku wuxuu ku yeelanayaa ilaa iyo levelka 10aad ayaa waxaad ku yeelanaysaa commission marka aad tahay diamond ilaa iyo levelka 10aad ayaa ku furan marka waa taan halkan aan ku niri maxay waxaad ka helaysaa commission ilaa levelkaaga 10aad ayadoo ay ku xiran tahay darajada marka aad tahay marka darajada u dambayso darajada diamondka ah qofku markuu gaaro ilaa levelkiisa 10aad ayuu commission ku yeelanayaa isbuucla qaabka kale oo lacagta looga sameeyo waxa loo yaqaanaa matrix commission kan waxa weeye waa bille oo waa gunno bille ah weeyaan marka waxa uu leeyahay mar kasta oo horay ay ugu soo biirtid shirkadda Leafgood horay ugu soo biirtid waxa lagu hoos dhigayaa
2 times 15 matrix oo macnaheedu wuxuu yahay qofku marka adigu shirkadda aad ku soo biidid oo shirkadda maalinta aad ku soo biidid waxaa jira dad ka dambeeya adiga oo shirkadda ku soo biiraya sidaa daraadeed qof kasta oo shirkadda hore ugu soo biiray waxaa la hoos dhigayaa dadka ka dambeeya marka si toos ah laguma hoos dhigayo kulligood ee qof kasta wuxuu raacayaa qofkii maxaan ku yiraahdaa enrollka uu ahaa ama soo qoray laakiin si forced matrix baa jira wax la yiraahdo oo ah in dadkaas qayb ka mid ah marka ugu dambeysay ay soo gaaraan iyadoo markaas loo abtirinayo ablaynada adiga markaas ka timaaday sidaa daraadeed 15 level ayaa meesha ugu sareysa oo qofku markaas matrixka loo soo dhigi karaya taasoo aan arki doona hadii alla nasiib ma arkay tusoo taabsiyo marka hadaad table-kan isla eegno tusaale ahaan kale qofku markuu aan rank uu yahay oo wax darajo uu soo gaarin waxa lagu ogol yahay ilaa iyo levelka 12aad in dad laga siiyo oo qof kasta oo halka kuugu jira oo lagu siiyayna lagu dhufto 2.5% 2.5 baa lagu dhufanaya marka si kale hadaan u soo koobno waxa weeye 2.5 wuxuu noqonayaa qof kasta oo halkan kuugu jira adiga waxa lagu dhufanayaa 25 sent ayaa lagu dhufanayaa 25 sent ayaa lagu dhufanayaa qof kasta oo halka kuugu jiro waa marka aad tahay unrankinka ilaa iyo waliba levelka 12aad ayaa qof kasta oo halka ku soo galay wax lagu dhufanayaa 25 sent dadkaana dad adigu aad keentay ma ahan unranked ba adigu tahayo waad isdiiwaan gelisay oo kaliya marka aad isdiiwaan gelisay ayaa shirkaddu waxay ku hoos dhigaysaa dadka lagu hoos dhigay marka waxay ku xiran yihiin adiga upline-kaaga sida u shaqeeyo upline-kaaga kale sida u shaqeeyo bay ku xiran yihiin laakiin laasim xilli kasta ha qaadato waxa ka sabab hadaad liifku iska diiwaan gelisay oo aad xubin ka noqotay in maxaan ku iraahdaa dad aad helaysid sidaa daraadeed leefaladan waxay ku buuxsamaan tirooyin kala duwan bay ku buuxsamaan laakiin macnaha guud waxa weeyaan ilaa iyo levelka 12aad in dad laga siinayo ilaa iyo levelka 12aad in lagu buuxinayo ama dad laga siinayo sidaa daraadeedna dadka lagu siinayo halkan ku jira lagu dhufanayo 15 sent daalan marka qofka markuu aan ranking ahaa marka bronsaha aan noqotid oo darajadan aad joogtid tusaale ahaan marka shirkadda ku soo biday suuqgeyn baa sameysay waxa baad anigu waa shaqaysanayaa inaad ka fadhiniya ma rabo marka waa shaqo tagtay oo asxaabtaadi waa la wadaagtay barnaamijkii marka asxaabta barnaamijka la wadaagtay darajada koobaad oo gaaraysa waxa weeye bronze taas oo lagu gaaraya laba qof oo kaliya qofku inuu keeno laba qof oo kaliya inay linkigiisa iska diiwaan geliyaan markii hore qofkii aan ranking ahaa waxa loo ogolaa ilaa iyo levelka 12aad baa loo ogolaa hadda maadaama aad shaqo tagtay oo aad shaqaysatay waxa lagu sii furayaa levelka 13aad baa lagu sii furayaa levelka 13aad baa lagu sii furayaa marka intaas oo level ah markii lagu buuxiyo lacagta ay heli kartid oo xaddiga ay heli kartid waa 4,000 weeye marka bronsaha aad tahay hadaa darajadan aad dhaafin oo bronsahaga aad ku ekaatid markii godadkan ku wada buuxsamaan oo dadkan tirada la rabay ay iskeenaan lacagta aad qaadan karaysay waa 4,095 weeye tan hadda aan soo marno levelka 12aad markii ku buuxsamo lacagta ugu badan limitkeeda waa 2,047.5 inta ma dhaafi karaysid tan waa limited weeyaan tan hadda darajadan aad dhaafin limited bay kugu noqonaysaa laakiin hadda sii socotid oo darajadan aad dhaaftid oo aad sii shaqaysato teamkaaga la shaqeeyaan ee korba u sii soconaysaa lacagtada sii badanaysaa marka bronsa marka tahay laba qof baad keentay bronsa noqotay waxa lagu ogol yahay in wax laga siiyo ilaa iyo levelka 13aad lacagta ka sameyn karaysidna oo ugu badanna waa 4,095 dollar baa ka sameyn karaysaa darajada ku xigta oo labaad waa silverka asna waxa lagu ogol yahay 13 level baa lagu ogol yahay 13 level baa lagu ogol yahay marka ayna lacag isku mid ah ka qaadanaysaa 4,000 baad qaadanaysaa tan sidoo kale waa 4,000 sababtan wax kale ma ahna waxa weeyaan labadan waxa weeyaan waa isku level weeyaan maadaama isku level ay yihiin waxaad qaadanaysaa laba lacag oo isla eg darajada gooliga marka aad gaartid waxa lagu buuxinayaa ilaa iyo levelkaas
lacagta aad ka heli kartidna waxa weeye maxay 8191 weeyaan darajada kale oo platinumka loo yaqaano waxa lagu furayaa 14 level lacagta ka qaadan karaysid waa 8191 waxa isku level yihiin goldiga waayo waa isku level waayo 14 levels diamondka waxa lagu furayaa 15 level lacagta ugu badan ay ka sameyn karaysid waa 11383 marka lacagahan waa matrix oo kaliya weeye laakiin waxa arki doonaa qaab kale oo badan waa u sameyn karaysid maxay lacaga inaba caadi ahayn laakiin matrixki kaliya ayaa inta ka sameynaysa weeyaan ka saddexaad waxa loo yaqaanaa qodobka saddexaad matching bonus weeyaan oo waxa weeyaan dadkii adiga ka talaalnaa oo aad keentay iyo dadkii ay sii keeneen ayaa waxa weeye waxa la qaybsanaysaa maxaan ku yiraahdaa lacagaha waxa la qaybsanaysaa billaha ay helayaan baad la qaybsanaysaa marka waxa loo yiraahdaa hadii ay badnayd lacagta isbuuclaha ahayd oo maxaan ku yiraahdaa iyo matrixka hadda aan soo sheegnay hadii wax badan ay ahayd oo cajiib ah waxa ka sii badan doona lacagta loo yaqaan matching bonuska oo aad ka heli doonto shirkaddan marka qof kastoo adiga ka talaalan waxaad ka helaysaa 50% toos ayaa ka helaysaa tusaale ahaan kale adiga Cabdi baa kambaniga keentay Cabdi marka wax weeye hadii uu shaqeysto bishii $100 haduu shaqeeyo $50 baa adiga shirkadda ku siinaysaa oo 50% baa yeelanaysaa wixii Cabdi uu shaqeeyay marka waxaan ku arki doonaa table-ka hoose ayaan ku arki doonaa haddii aan leedno qofka marka adiga tooska u keentay tusaale ahaan kale qofka adiga tooska u keentay waxa ka helaysaa 50% caadi ahaantan waa taan soo arkaynay marka darajada silverka marka aad gaadhid qof kasta oo kamida dadka aad keentay kamida 100% waxaad ka helaysaa 10 waa silveriska dadka silverka weeyaan oo kamid ah dadka adigu aad keentay dadkii ay keeneen oo ah generationkaaga labaad ama dadkaaga labaad wix kasta oo silver gaaray 10% baad ku yeelanaysaa dadkaaga gool gaadhid dadka adigu aqoonay qof kasta oo gool gaara waxaad ku yeelanaysaa 5% dadka marka adigu aad keentay dadka ay keeneen oo ah second generationka kuwa aana qof kasta oo gool gaaray waxaad ku yeelanaysaa 5% sidoo kale dadka ay ka sii keeneen oo generationka saddexaadana waxaad ku yeelanaysaa 5% baa ayaga ku yeelanaysaa platinumka sidoo kale qof kasta oo platinum gaaray oo kamid ah dadka aad keentay first generationkaaga ah waxaad maxaan ku yiraahdaa ku yeelanaysaa 5% qof kasta oo second generationkaaga ah oo dadka ay keeneen hadii ay platinum gaaro 5% baad ku yeelanaysaa third generationkaaga oo ah dadkaaga saddexaad ama levelkaaga saddexaad qof kasta oo gaaray platinumka waxaad ku yeelanaysaa 5% fourth generation waxaad ku yeelanaysaa 5% sidoo kale diamond marka adiga gaartid qof kasta oo diamond gaaray oo ah dadka adiga toos kaaga talaalno adiga aad keentay oo first generation ku noqonayay waxaad ku yeelanaysaa 3% second generation oo ah dadkaagii labaad cid kasta oo noqotay maxay diamond waxaad ku yeelanaysaa 3% sidoo kale qaybta maxaan ku yiraahdaa third generation oo ah dadka saddexaad oo maxaan ku yiraahdaa qof kasta oo gaaray diamond waxaad ku yeelanaysaa 3 fourth generation oo ah maxaan ku yiraahdaa dadkaaga afraad dadka saddexaad dadka ay keeneen oo noqonay dadkaaga afraad 3% baad ku yeelanaysaa fifth generation waxa laga siinaya sidoo kale 3% baad ku yeelanaysaa marka halkan waa taan maxay 5 enrollment generation deep marka ilaa iyo 5 generation baad ka heli karaysaa lacagtaas matching bonuska ah oo billaha ah iyadoo markaas ay ku xiran tahay darajooyinka tan afraad waxa weeye retail commissions weeyaan oo waxay la xiriirtaan xagga barorta ay la xiriirtaa marka tusaale ahaan kale qofka hadduu markuu isdiiwaan gelinayo oo kale uu isku diiwaan geliyay maxaan ku yiraahdaa wuxuu isku diiwaan gelin karayaa inuu barorta kaliya ka ganacsado uu sameyn karayaa sidoo kale asagoo member caadi ah alaabta intuu gato uu sii iibin karayaa marka macnaha paragraph-kan ku jira oo guud waxa weeye qof adiga linkaaga haysta tusaale ahaan oo adigu aqoortay haddii shay uu iibsado shaygaas uu iibsaday 100% baa laga siinaya
boqolkiiba 50 ayaa laga siinayaa shaygaas uu iibsaday marka waxaan arki doonaa sidoo kale table-kan baan arki doonaa marka qof aan rankiga tusaale ahaan oo kale marka adigu aan ranki aad tahay haddii qof aad keentay uu iibsado shay boqolkiiba konton baa leedahay qofkaagii maaragtay labada qofna iyana haddii uu alaab iibsado boqolkan silfar markaa gaadhin ilaa levelkaaga afraad ayaa waxaad ku yeelanaysa waxaan filayaa khadka ka go'ay Dr. Axmed baan filayaa codkii haddii la maqlo qaybta chatka commentiga 11 insha Allah igu soo qoraan inuu khadka go'ayaan filayaa 11 siraajo waa maasantahay okay anaa dhamaystiraya insha Allah qaybtaas anaa ku jimicsan doona inta uu soo noqonayo xaajigu doctorku insha Allah dulqaata wax yar filayaa gabagabadii ayuu marayay anaa dhamaystiri doona insha Allah marginka qaybtan retailka ayuu marayay okay waaya wahag aad iyo aad buu mahadsan yahay Dr. Axmed Cabdirasaaq oo ku soo gaalkacayo xisadda sida qurux badan inoogu soo waday haddana waxaan filayaa cilad farsamo ayaa hesha xagga internetka intaa aan ku dari doono insha Allah qaybta retailka isaga ayaa gabagabeynayay retailku wuxuu quseeyaa commissionada laga helo dhinaca productyada ama vitaminadii uu casharka bilowga ku sharaxay qofkii marketing u sameynaya ama ka shaqaysanaya ayuu quseeyaa marka sidii oo kale sidii barnaamijka qaybtii koobaad ee weekly bonuska ama weekly commissionkii ayuu u shaqaynaya qof kasta oo productka ka ganacsanaya ama soo iibsaday oo adiga toos kugu xidhan 50% ayaad ku leedahay haddaad darajada bronziga tahayna qofkii directgana waad helaysaa levelka labaadna waxaad ka helaysaa 10% darajada silverkana ilaa iyo levelka afraad ayaad commission ka helaysaa darajada goldgana ilaa iyo levelka lixaad ayaad commission ka helaysaa darajada loo yaqaano platinumkana ilaa iyo levelka sideedaad ayaad commission ka helaysaa darajada loo yaqaano diamondna waxaad wax ka helaysaa ilaa iyo levelka tobnaad intaas waa dhinaca commissionada ama lacagaha laga helo qofka ka ganacsanaya barnaamijka qaybta dawooyinka ee productyada market garaynaya weeyaan waya qodobka shanaad ee ku xiga dhinaca waxyaabaha lixdii qaab ee doctorku uu sheegay ee companyga lacagta looga sameyn karo lambar 6 wuxuu quseeyaa isaguna dawooyinka ayuu quseeyaa waa influencer weeyaan oo qofka ka shaqaynaya oo productyadaas iibinaya ayuu quseeyaa marka tanna waxa weeye qiimayaasheedu waxaan filayaa inay ku qoran tahay iyo waxa laga helayo insha Allah qaybta u dambaysa ee lixaad number 6ka waa qaybta ugu fiican ugu faa'iido badan qofka haduu gaaro waa darajada diamondka qofka haduu gaaro diamondka sidii xiisada bilowgeeda lagu sharaxayba commissiono badan ayaa lagu helaa diamondka oo aad u badan baa lagu helaa diamondka saa darteed commissionka ugu muhiimsan waxa weeye commissionka loo yaqaano bonus poolka global poolka oo ah 2% oo share ah ayaad ka helaysaa companyga iibka dhacaya guud ahaan timamka adduunka oo dhan waxay shaqaynayaan reer diamond ayaa loo qaybinaya marka lacagtaas lacag yar maaha marka loo eego ee companygan dakhliga soo geliya saa darteed lixdaas qaybood oo doctorku uu sheegay ayaa lacag uga samayn kartaa companygan live good qaybta u dambaysa xisadaan kusoo afmeeri doono waxay noqonaysaa sideebaa haddaba lagu gaari karayaa darajooyinka maskaxda kusoo dhacaya qofku markuu darajada bronze gaaro waxa soo helayaa silver waxa soo helayaa goldiga waxa soo helayaa platinum waxa soo helayaa iyo diamond waxa soo helayaa ayaad la socotay darajada bronze haddaba see ku gaari karaya haddaad inaad marketing company u samaysid
bronsiga waxaa lagu gaaraa oo keliya 2 qof oo keliya oo linkigaaga aad siisid oo isdiiwaan geliya ayaa tiimkaaga labada qof ee soo galay ayaad ku noqonaysaa darajada loo yaqaano bronsiga xaqiiqatan kambanigan darajooyinkiisu aad bay u fudud yihiin qofka fahma ee markuu isdiiwaan geliyo tababarada qaata oo hore ayuu socon karaya hadduu qofku kambani hore u soo shaqeeyay kambanida marketingka ama affiliate marketing u shaqeeyayna inuu ilaa diamondka gaadho wuxuu ku gaari karayaa wax ka yar 3 bilood qiyaastayda haddii uu qofku kambani hore u shaqeeyay hadda diamondkuna waa meesha ugu dambaysa ee kambanigan la gaaro weeyaan sababta 3 bilood loo tiigsanaya waa maxay kambaniyo badan waan ka soo shaqeynay waan garanaynaa halka ugu sarreysa in la gaaraayo waxay ku qaadan jirta dadka sanad 2 sano 3 sano 4 sano kambanida qaar baa 10 sano aadan ku gaari karayn meesha ugu sarreysa ee global pool ama bonuska commissionka shareka aadan gaari karayn marka kambanigan yani waxaa la fududeeyey qaabka aad ku gaari karaysid darajooyinkaas tusaale ahaan haddaad leedahay caawa waxaan rabaa inaan bronsi gaadho caawa waad isqoraysaa 2 qofna waad diiwaan gelinaysaa oo tiimkaaga ah dabeedna darajada bronsiga ayaad ba joogtaaga commissionka bronsiga la sharaxayay ayaad tiigsanaysaa wiiga khamiis inuu ku bilaabo silver maxaa loo gaari karayaa darajada silverka ah 2 qaab waa loo gaari karayaa qaab waxa weeye 10 qof inaad toos isaga talaashid oo adigu aad linkigaaga aad siisid iyo tiimkaaga oo gaara 20 qof ku gaara yani 10kaas qof haddii midkiiba hal qof uu keeno ama mid kaliya uu 10 ku keeno 20 haddii xubnaha uga dhan noqdaan waxa weeye darajada silverka ah ayaad gaaraysaa marka 20 qof wax aad u fudud weeyaan marka laga silver laga dhigo way sii fudayaan qofka istaraatiijiyada labaad aan sharaxaya qaata ayaa markiiba gaari karay oo ah inuu qofku sameeyo 3 qof kaliya inuu iska talaalo diiwaan geliyo oo uu la yimaado marka uu bronsiga noqonayaba labadii qof hore haystay qof saddexaad uu ku daraya saddexda qof ayuu wuxuu ka dhigayaa darajada loo yaqaano bronsi ayuu ka dhigayaa oo midkiiba 2 qof ayuu ku xidhayaa marka waa 3 qof oo 3 lugooda bronsi ku gaara iyo tiimkaaga oo dhan oo 20 qof ku noqda bronsi darajada loo yaqaano goldiga qofka raba inuu gaaro gold 2 option buu ku gaari karayaa ama 3 option ba laakiin optionka ugu sahlan ee aan dhiirigeliyo waxa weeyaan in 3dii qof ee aad soo waday ee ku noqday darajada loo yaqaano bronsiyada ku noqday aad u silverka ku noqotay 3dii qof waa isla 3dii kaliya waxaad u diyaarisaa inay ku noqdaan iyagu silver ay noqdaan 3dii inay silver ku noqdaan oo 3dii maxaad oranaysaa mid walba silver muxuu ku noqonayay horaan ku soo sheegay silver wuxuu ku noqonayay 3 qof oo bronsiya oo iyo tiim 20 qof buu ku noqonayay saadarteed 3 silver soo saar 3 lugooda marka maxay noqonayaan 20 ilaa 60 qof bay noqonayaan tiimkaaga oo dhan marka 100 qof ku gaaro marka 40 qof ee kale hal lug ha wada galaan ama 2 ha kala galaan kuma taalo 3 silver baa shardi ah oo 20 ah iyo 100 qof qofka caawa muuqaalka daawanaya zoom ku jira ama laga yaabo inuu bari youtube ka daawado haddaad platinum rabtid inaad aadid oo ah meesha hadda aan ku nasanayo bustuhu yaallo oo laakiin aan rabo inaan bustaha ka qaato dhawaan haddii la haydmo kaliya waxa laga doonayaa 3dii qof aan kulahaa u horeeyay ciyaarta ku bilowday 3dii dhiso hagaaji oo 3 maxaad ka dhigaysaa 3 gool ka dhig 3 gool ka dhig waa ka waa 3dii waxaad ka dhigaysaa darajada gooliga gaarsiin 3dii qof oo gooliga maxaa laga rabay 100 qof inay noqdaan iyo mid walba inuu 3 silver ku jira laga rabay ciyaartii hore ku noqon marka 3 lagu 3 gool ka soo saar oo mid walba 100 qof ah 300 qof haystaa dabadna 500 qof baa gudaha laga rabaa 200 ee kale waxay ka imaanayaan hal lug bay ka imaanayaan ama 2 lug bay ka iman karaan ama 3 ka iman karaan laakiin muhiimadu waxa weeye 300 oo ku kala jira 3 lugood adigu aad leedahay yani 3 gool soo saar 200 ee kale waa iska imaanaysa 500 marka timaadina darajada platinumka ayaad sidaa ku joogtaa dayman oo aan raba hadda maalmaha soo socda hadii ilaahay inaan u ruqaansado oo aan bustahayga u sii qaato halkaas aan ku sheego waxa laga rabo ama waxa aniga laga rabo right now dayman waxa laga rabaa had yarta aniga 3 qof 3dii qof aan siyaarta isla soo bilownay ee aan ku yidhi markaad bronsiga tahay 2 qof kaliya la kaalay qof saddexaad ku darso 3 qof iska talaal 3dii qof umba waxa laga rabaa inaan u diyaariyo inay noqdaan platinum 3dii qof mid kasta inuu noqdo platinum oo mid kasta platinum wuxuu ku noqonayaa kor u noqoqaya ciyaarta kor u noqo mid kasta wuxuu ku noqonayaa gudaha 500 qof inuu helo iyo inuu helo 3 qof oo gool ayuu ku noqonayay soo ma jeedid dad min 3 qof oo platinum hadaad soo saaratid tiimkaaguna ay ku noqdaan 2500 gudaha ku noqdaan darajada diamondka saasaad ku tahay marka waxaan rajaynayaa muuqaalkan oo doctor Axmed Cabdirasaaq oo joogaalkacay uu soo bilaabay
anigoo maxaa jecel sahla aan dhammaystirayo bilow ilaa dhammaad kambaniga waan ku sharaxnay haddii marka zoomkan caawa uu kugu soo macsuumay walaalaha leaderska aan wada shaqayno insha allah iyaga ayaa dib ula xiriirsaa si ay kuu diiwaangeliyaan oo aad member ugu noqotid oo gruubada lagugu daro diise muuqaalkan aad ka daawanaysa barta youtube-ka ama facebookaba insha allah whatsapp numberka ka muuqda ayaad nagala soo xiriiri karaysaa linkiyada halka yaalana waad iska diiwaangelin karaysaa laakiin waa inaad nala soo xidhaa si gruubada lagugu daro oo tababar fiican laguu siiyo xiisadeenna caawa oo ahayd xiisad bandhig ah public presentation ah intaas ayaan ku soo ururinaa haddii lahaydmo mikrofoonka waxaan siin doonaa qaar ka mid a liidarada barnaamijka liib guud aan ka wada shaqeyna insha allah laakiin recordingka intaaynu ka bato ma rabno maadaama youtube-ka iyo facebooka la geenayo intaas ayaan inoogu xidhaya qof kasta oo muuqaalkan daawan doona ama hadda daawanayaana wixii information u baahan tahay meelaha aan kuu sheegay ayaad nagala soo xidhi karaysaa si laguu caawiyo insha allah guulaysta ballankeena waxbaro shaqayso waarimay sida wala ka hadho